qarannimo iyo qabiil meel misla galaan qaranka waa qaran Soomaaliyeena libaaxidii Afrikana la dhahay jiray dawladii lamaad Masar lanaga horeys ciidan xaqiis ana ka ahayn wallahi kulan wanaagsan daawadayaasheena meel kasta aad nagala socotaan stuudiyaha goobjoog waxaan ugu la sugan Shariif Abubakar Ahmed oo ku magac dheer Abubakar ya Walidi waxa uu kamid yahay odayaasha dhaqanka gaar ahaan odayaasha dhaqanka ee Banaadiriga waxa uu si weyn ugu ololeynayay kursi kamid ah kuraastii Banaadiriga oo muddooyinkan buuq badan uu hareeyay laakiin halkii ay wax ku dambeeyeen ayaan marka hore isaga weydiin doonaa marka hore Shariif soo dhawow waxa way arin aad u farxad badan ee noo tahay waa kaaga mahadcelinaynaa in aad maaragtay ajiibtay wicitaankeena stuudiyana aad nagula sugan tahay marka xiga waxaan rabnaa arintii ku saabsaneed kursigii aad mar maaragtay doodiisii wadeen xagee wax ku dambeeyeen bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxa mahad weyn ii ah social media goobjoog oo aniga aan ka hadlayo oo howlwadeenadiisa isoo baceen waa ka ajiibay warkooda maadaama warbaahin oo cod dheer ay tahay goobjoog oo sharaf leh waa ayidii warkooda maanta waxaan ka hadlayaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin kuraas on 4 sano 5 sano u doodeeni dood dheer iyo dood gaaban meel kasta u marnay cariir iyo xagga ka bax inta ka bax qadada nala xiri wax ka sanaleeyay maanta alxamdulillaah ilaaha ma hadle kursigaas waa helnay ninkii umudnayna noo fadhiya Shariif Mustafa Shariif Nuur aku fadhiya yaa idikaysti waxaa naga haysteen nin la dhahay Lutfi Maxamed Umar oo ashraaf aan ahayn ku fadhiyo mid lamaad waxaa rabtay inay isku soo sharaxday Basma Aamir Shakeeti isku soo sharaxday ayadana waxay rabtay kursigaas inay hanato ilaahay ma dhihin laakiin alxamdulillah ana kana dood saan u wadnay qaylaan u wadnay kursiga alxamdulillah gacantan ku soo wareegay kursiga gacantan ku jir anaga ku fadhinaa ninkii umudnaayeen ku fadhiya Shariif Mustafa Shariif Nuur ku fadhiya sidaas si lamid ah beelo kale oo waxa jiro ayagana maaragtay kuraastoodii ama cidii ay la rabeen ama ayaga lahaanshahoodii laga xoogay ama la rabay in laga boobo laakiin wadooyin badan u mareen qaar maaragtay hubay la soo baxeen qaar maaragtay way dacwoodeen qaar maaragtay way sabteen adinka wada noocay u marteen أنا والله ودذي أو سان هذا الأمر أنا ودك هب نمخاذن هب أنا كلا نخاتم هب بس ما ويل الشيء ده هب بينو خاتم ده ومن شارع يقولي من الماشي جروب كي وحي صوبيرن خلادن أو دور شوين قدي دور شوين كبنادري كي صوبيرن قدي دور شوين كان أيجان الشيل كي كهر كينن ماشي أسكهر إماد وكدعي بس ما يعيد مدة ولا قرعدي ماشي وكتجن ماشي waxaan noo sheegtay hadda ka hor waxa jirtay mar oo maaragtay intii doodan iyo waxaan ay socdeen aad ka hadlaysay arimahan waxa sheegtay in beesha ashraaf ay ahayd oo haddana ay tahay markii wax loo baahday in ayada loo imaanayay la tixgelinayay laga duceysanayay warkaas maaragtay noo faahfaahiban warka waxa waaye taas arin hadda dhacday ma arin 500 600 sano ka hor dhacday way sababtana Soomaalidu waxa waaye ashraafta aad ay u qadarisa sababta waxa waa ashraafan u dhalin anaka Quraysh aan u dhalin anaka ashraafan u dhalin Soomaalidan aad ay noo qadarinaysa markii la yiraahdo Shariifka hadluhay aad aan u cusisi jiray Shariif ducay ducada anaka lahayn hadii nin ajiraya midna Quraan noo saar Quraanka anaga saari jirna culamaa diin ay sharaf leh ashraafan nahay Soomaali wax ma u dhimi jiray ayadana wax ma noo dhimin laakiin gadaashan waxa dhacday markii 30 sano burburka dhacay oo dawladihii ay baabeen xubintii ashraaf leed kulli wala kala qaatay waxa la warnaga dhaafa dad looma ooyaan waaya ilooma aaranayno baxsheen 4.5 wabal naga tagay ka tagaydil naga tagay laakiin ilaahayna meel kale isna cilad ka keenay waa ujeedin wadankii burbura ka dhacay nabadgelyadiis amnigiis waa baabay wadankii Soomaalida mid ahaydna waa kala daadatay laakiin hadda ilaahay waxaan ka tuganaa Soomaali hal ay Allah nasiibo oo midaysan waxa jira dad aaminsan kursigan hadda aad leedihiin kursigii ilaahay dib waa noogu sahlay macna anaga lahayn aad dhehaysiin xaqeeni naga maqnaa waaye waxa jirta in dad aaminsan yihiin in la idin boobay oo idinka aydan lahayn maya waxa la noo boobay mal kursigan cartanka keensan carte Shariif Maxamed Xasan carte ka keen kursigan hadda ma aha waqtigii xilligii Sheekh Shariif oo 500 xildhibaan ahaayeen أنا كعرثة كلا نميت شريف محمد حسن أكو فدي شريف محمد حسن واجردي نين أشراف أنا هنا أشراف أنا ده وخيان الرسوبية لطفي محمد عمر أكو فريسي أشراف نمس أكو فدي لطفي تركي سوى حمو قبنين دوت ليران عمرني وكدما نمت كرسي وحنا نين كان مو أبون كرسي أنا أكو فديسه
nin haboon aan keensan nin baan maraykanka jireen u wacni shariif mustafa shariif nuur aan wacni ninkaanaan siinaan aan kursiga kursigii waa u dooda kursigii sidii aan ku helmaana wax aniga lanoo boowi male wax lanoo booma kursiga anaga xaq u leh waxaad leedahay hubaan loo soo qaataa leedahay anagana hub ma haysanin haddana kursigii waa helnay see isku qabanayaan adoon hub haysan waxaa isku qabana ana ku sheegaya anaga ra'iisul wasaarahan u tagnay ra'iisul wasaare waa dulmanahayaan dhahnay niyo waana dulmo kursiga anaga leh baaran degsubi dadka nugu haystaan iyo anaga nagal fiiri dadka nugu haystaan waa dad todoba guri leh waa qoysas yar way anagana qoys malaayiin ah nahay soo fiiriya gudi baaran degdir kursiga anaga iska leh dadka yaa tiri marka see ku ogaateen inay dadka yar yihiin waa anaga batirina telescope dadka dhan ba yaqaan amuud tiri wax fiirsaba telescope aan waa la ogaa anaga tira badan marka kursiga sidii ba anaga ra'iisul wasaare waa fiirshi xaq ra'iisul wasaare anagu dadka dulman xaqooda oo soo dhaxshay kursiga ra'iisul wasaare wuxuu dadkan u mudan kursigooda ha u tartamaan oo u tartan kursiga anaga helna alxamdulillah intii maaragtay odayaasha dhaqanka iyo waxaan la soo xulayay adiga maxaa beeshaada ay kugu dooratad aaminsan tahay oo oday dhaqameed ah ku noqotay aniga waxaan dhaqameed aan ku naqday wax afhayaankoodan ahay aniga ninkii u hadlaayaan ahay ninka hadal oo karti badan ahay oon cabsaynin geesiyan ahay aniga hadalna ma ka baqaynin cid kadan aan ka baqayna ma jiro meeshan rabana waa maray aniga saasay igu doorteen howlkarnimo iyo raganimo igu doorteen iyo geesinimo banaadir weligood halay ahaan jireen maaragtay dadka waxay u arki jireen dad isku duuban oo hal nooc ah laakiin hadda kursigan iyo kuraasta la midka ah waxay soo saareen dadku inay kala duwan yihiin maaragtay hadda sidee lagu xalin karaa arrintan hadda arrintaas habeen hore waa ka shirnay taas waxaan rabna banaadir hal aan ka dhigno shanta xildhibaan nin gudoomiye aan suubino hal banaadir ay ahaadaan kan qabiil hebel waay kan qabiil hebel waay male kuraastan anaga hadda kursiga anaga aan ku fadhin Soomaali weyn dhanaan rabo in wax loogu qabto banaadir kala god lama Soomaali dhanaan rabo in wax loogu qabto meel kasta ay degantay Soomaali habeen dhaweyd waxaad la kulanteen oo aad maaragtay afur sharafeedna la qaadateen xildhibaano kulankaas muxuu ku saabsanaa kulankaas wuxuu ku saabsanaay xildhibaanad baa nawacday Khadiija Makhzumi waxa tir afur kun anaga qaba waxaana joogeen xildhibaano ayada wax ka tobanayeen أنت هشيش ما هين رفقي علماء رفقي أو كرسي إذا يكون فديس أو إيجا كفديين ومرك إذا رسي كرسي إذا يكون صباح أو دهن أنا كوانا لبو وانا الخياني سيدنا ليالي كبير رالي قلنا يبيحنا أساس أفريقيا أدي محك عقد جنيد مرك inaad maaragtay xildhibaanadaas la kulantay inaad maaragtay wada fariisateen inaad wada afurteen arintaas maxay kaaga dhigneed arintaas sharaf weyn ay ahayd maadaama shanta banaadir aan isku nimid kubii walaalaha ay banaadir reer faqiin cabashada ay ka qabeen kursiga maadaama ay yimideen oo iyagana raali gelin ay ka bixiyeen sharaf weyn inuu ahayd alxamdulillah banaadir meesha aan isku nimid waay shariif waxaan rabaa aragtidaada inaan ku weydiiyo Soomaaliya maaragtay markii dawladda ay burburtay kadib nidaamkaana bilowday oo ah 4.5 4.5ka dadka qaar waxay u arkaan in arintan xal uu ahaa in wax lagu qaybsado oo hadiiba aan 4.5 lagu qaybsan lahayn awood loo sheegan lahaa waxba heli lahayn kuwa waxay u arkaan inay ku dulman yihiin adiga maxaa u aragtaa maya wax ma arko wax zulm antiyaala ma arko hay ana maadaama afar ibar oo lagu kala qaybsaday aniga barkana la saadi kala gaanya ma banaadir kaligiis ma dad badan waxaa ku jiraan beelahan jireer weyn ku jiraan waxaa dad badan ku jiraan meeshan oo Soomaali oo dulman laakiin maadaama saas ay tahay sidii aniga alxamdulillah hada waxay arkaan kursiga waa kuma gansanay laakiin hadda waqti dhow in laga baxo oo maaragtay 4.5 kaliska dhaafo oo doorasho caadi ah la aado iyo in 4.5 kan ilaa muddo la sii joogo maxaad taageersan ma aniga waxaan taageersanaa qof iyo cod dimuqraasi sanduuq yalla keeno xisbiyalka la badiyo ninba xisbi oo furso xisbigii guuleysto aqlabiyada oo qaato dawladda oo soo dhiso si leegadii camal haddii laakiin taas la aado kalsooni intee la egaad ku qabtaa in maaragtay banaadir ay cod heli doonaan waa helayaan cod khasab waa barkad xisbiga la furo mogtahay xisbiga doorashadooda sanaadiiq ninba sanaadiiqdiisa oo ilaashaa ninba intii oo karaankiisa doorasho oo helo sanduuqiisa ku ridaa kabacdi tira la galaa tiriis la galo in banaadir ay guuleysayaan inaan taasan hubaan afarta sano oo soo socoto madaxweynaha la dooran doono maxaad ka filaysaa adiga oo maaragtay ka fiirinaya banaadiriga iyo baahiyaha ay qabaan والله تاس wax ma ka sheegi karo
waayo nin bani aadam way madaxweynaha hadda ka bacdi la dooro doono kow yahay ma sheegi karno hebel waayna ma dhaha yani laakiin waxaa lan ilaahay ugu tuugan in khaluubadiis ilaahay isku soorada in Soomaali dhan asmidayo banaadir iyo kan way jareer way kan male Soomaali nimaas uu hogaamiyo wadanka cadaalad isku xukumo laakiin haddii taladaada lagu weydiiyo shaqooyinka ugu horeeya ha ka dhiga maxaa dhihi lahayd shaqooyinka ugu horeeya wuxuu ka dhigaa cawrta nabadgelyo ka dhigaa amniga kow amniga way ka bacdi cadli way cadaalad dastuur oo Soomaali ay ku dhaqanto maxkamad dastuuri la furo maxkamad sare la furo hol karnimo beeraha tacab asbax ka bacd beerahaas in istacbo Soomaali beeray leedahay dhul barwaaqan leena anaga inta hor waxaan arkay ambassador Kuwait u shaqeynaa 74 marka maalmaha kamid ah afar safiir waxay dhaheen waxaan rabnaa dalxiis inad nageyso dhul beereed Kenya tusoo dhul beereed ma qabteen haa waa qabnaa waa wadi safiirka Sacuudiga kan Ciraaq kan Kuwait iyo kan Bahrain afartoodan wadi waa baxna shidaalan ku shuban gaari waxaan geeyay experimental jooran geeyay meesha canabka iyo bambeelmada iyo waxaas beeray khasban ku wareeji hada ya shariif xaq min hada ya shariif leen حقسيات بري هذا ايوه حقسيات برا يعني ما ها يا له كان محمد سياد مية حق الصومال هذا ايوه ما شاء الله إله في مكان ثاني في مكان كبير يعني يوم كيلومات واودي ها يوم كيلومات واودي افغوين كي بيرها افغوين كبرج بين تقنا بمبلمو كم كرتون من افر كرتون لسه كم فلوس لا من غير فلوس هذا هديه هذا لكم ها العقل الان هاي بيري افغوي كبريغا موسكي وحي عم به خم به ماله تغبري قليد الا مريره دلكاس او دغلنجي ما شاء الله حق من هذا حق الصومال حق سياد بري هو ما شاء الله في مكان ثاني في مكانات كبيره يونكي لما سونكي سدحات واودي وحن جاي جناله بيري موسكي جناله عم به يقوم به اقراريا كبريجي حقا تضواتني افرتيو يا محمد سياد حكمها الكبر واخذ ننجي الا بولي يقلوين نجي ما شاء الله ارض كبير هذا حق من هذا شيء حق الصومال غير هذا ما شاء الله في مكان ثاني في مكان كبير يعني مالنكي افراد واودي وحنجي جلب جمامه جدك وتوسنا ورت مشروع فانولنجي ما بيحرنكي اركان حق الصومال هذا هو باري عم بي سوقات موصل سي وحول الا قوبين نجي قوبين وبي بدا وبي واسكو درسماين waxay dhayn biyahan waa macaya kana dhanaan waa biyahan ma inta loo leexiyo awoodin dawladda Soomaaliya waxay awoodeeda waa yarta dawladda Soomaaliya 5 sano la jirta lixdan iyo sagaalkii khadadan 74 la joogo laakiin waxaan jeclahay hadhow biyo xireen kala suubinayna insha Allah waa difaaci dawladda Soomaaliya waa soo baxnay xamaran nimid safiirkii Kuwait waa soo boodi safaarada jaamacada carabta kulliyo isku yeeri 20 safaaradooda waxay xaflada la suubiyo cabadi wuxuu yiri yaa soo khudbay waxaan idin wacay yiri waxaan idin sheegay yiri idaa yatuug harb العالم الثالث حرب dagaalkii saddexaad adduunka haduu kaco ardi Soomaaliya kaafi caalam الاسلام Soomaaliya dhulkeeda wixii lagu beero caalamka islaam waa deeqa marka saasan dhulkaasan haysana barwaaq batrool mu baahan hadii dhulkaas la tacbo sisin galay digir wax bal xoolo beerihi warshadahan iyo toobka warshadahan iyo sokorta waxaan yaadan suubsana والله مريكان أنكم رتوه Soomaaliya waxna sii u dhahay mid kale ku daramaan social media aadan oo mahdiya maadaama yimin taariikhan ka hadlaa 1957 Soomaali dawlad ma ahayn dhageysta Soomaaliya meel kasta joogto markayga dhageysta Soomaali dawlad ma ahayn Kuwait Bahrain Oman Qatar inta imaan zaka anaka sii jir laakiin Sacuudiga ma imaan laakiin zaka anaka sii jirnay موسك العقل أنا سي وبري يجر صدقن سي يجر سومالي دت كلمه مصر إيجيبت دقالك كنال سويس كوجر إنجليز كي ومصر دقال ماي أنت دبيالك أنت معاون لك مصر معاون سي يجر مالنا مالينا هذا مع إلهي قدري ما كدمبو أبو دبي أو جبل اللي خبت جبل كركس عرب بنغلاديش كسوقته ما يكبرته قلي بريس ما يكبرت عندنا معاون نسي تاسون وفيلم لبي 8 مليون هنا مركز او وحسو صار لهني وحول بن يجر لكن قال شادك اسكن ايش 60 سنه تمد نول بسر وربا انه لسه 60 مليون 60 سنه 60 سنه جرا 60 مليون هاستا
waxaan dhisi guri 50 biyaanan dhistay guri 30 biyaa guriyaala la isku faanu haydo war faanid wax ma taray waryaa magacaad leedin Soomaali baatiin waryaa guri ku faanid laakiin banaadir yaa bilaabmo aad gudubto oo dabaqay guri banaadir 3 dabaqay dhisan 10 iyo waxaas ma gaarin banaadir saddex xamar weyn oo dhan iyo shangaani wada dabaqay waaye dabaqay laakiin 3 dabaq leeyahay 10 ma dhama 3 dabaq leeyahay ma gaarsiina 10 dabaq oo macnaha 3 biyaano waaye ma ka biyaano bis ka badan ma waaye laakiin xamar oo markaas baraaka ahayd adika laakiin gurigaas lacagta lagu dhisi bees xalaal ah daanga waxaan cunayna bacaad lagu dubi saliid qaali ah lacaga la aroor 2,000 shilin hal shilin meel la dhigay dhagax la iyo shameenta la iyo sidii lagu dhisi guriga hadda kan ninka laba bilood macaawin wasiir oo naqaha meel loo dhiwa wasiirka macaawinda taayl dhaha wixii macaawinayay ma kullu u saadexsana afartii sano ka bacdi jaa guriga u dhistay 3 milyan haysta u dhaha sax taas ma dhici karta marka fiiri Soomaaliya taas ma idin la haboonta idinka ma aan ku jiriye hadi waa ku jirta kulli goobjoog ma Soomaali ma fiiri Soomaaliya haday hal naqato wallahi Mareykan anu kuma tuugsalay waxay sii dhahlaa deen isii Soomaaliya laakiin wax martiin wax soo saar martiin ninkii hadda fiiri aniga amal hadda indheer garatan ah aniga waa iyastan waa Egypta 4.5 ay grigtan nin cilmi aan leeyahay digrido waxba aan ka siinin وانا نين جيومتريا اهي انيغا oo khibrad leh beerasi loo tacbay leh beerasi wax loogu soo saaray leh ayaan ahay geometry agrarian ka soo baxay way Shariif waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xasuustaada maadaama waqtigaaga anagoo ka faa'iideysanayno Soomaaliya waxa ka dhacay dagaalo sokeeyay dagaaladaas sheekooyina jiray waxyaabo dadka murugo geliyay wax maaragtay inkastoo aysan fiicneen mararka qaar kood laag dadka markay ka sheekeynayaan wax lagu qosle iska noqday lagu yaabo waxyaabihii maaragtay ugu darnaa ama ugu yaabka badnaa ee dagaalada sokay xasuustay dhacdooyin xasuustid ma jiraan ma dhacdooyin aniga qabata bijira bano degmada waa bari heer aawo yaalada anaka waa banaadir way boondere anaka leh xamar jajab anaka leh xamar weyn anaka leh heer aawo iskale marka maalmaha kamid ah laba abgaal iyo laba hawr gidir oo meel aan ku sheekaysiin macal aniga waa jeceliin ay sheekadii aad jeceliin ugaas kuwan ugaas waaye kuwan imaam waaye waxaan dhageystay wari adinka faaraxo adiga faarax hay to faari waxaad rabtaa waxaan eri waa beri heer aawo iskale gudoomiye abgaal waaye xamar jajab heer aawo iskale gudoomiye wargidar way ku dhacta mana qabata taas aabaha was doofaariyo markii siyaad la eriyay xad dishi oo siyaad maxaa u dilaa dadkiisa siyaad masaakiin waa dadkiisa Soomaali waaye hadan dad dil man qiimo yeelnaayo صح wariya markii siyaad la eriyay xad dishay yidhaaheen wax ma dilnaayo ama sad ku helaysa gudo xabad rooti koob shaad ku leedahay wadanka hatta shaqa hay'ad haday timaado shaqa ma leedo yiri maxaa dhacayaan ma lagu siinayo shaqada wala ga dilnaa yargo shaqada laga dilnaa shaqa oo $1 bishii dil qaaday anaka amalna la geeyo wana la dilaa ko kala ay rawaa inaas usoo bedelkiis booskooda askaro si fiican taas waana qabatay hay'ad kasta timaado mucaawina la keenaa mucaawinadii hadii la keen anaga waa khadina markii awood ma hadii mucaawinadii la sii hata saliidi iyo wixii fiicnaa wala naga dhigana dhig wariyana la xaq u bax sax wariya loo ma oo yahay kisina la sii qaadina magansiin dadkana waana jeedeen yaa hiraab ee hadan walno gurmada maalmaha kamid ah waxa dhacday afgooye aniga dhageystaya afgooye aan tagay aniga afgooye hadan tagay qaxootena aniga islaantay ilmaha waxaan soo qaaday go sariir oo islaanta leed cusub ah iyo kabo oo iskaarbakooy aan laayo 35 aan suuqa geystay boqol kun ku gaday boqolkii kun baalweyn kan ka boqolkii intaan geystay kuwa isbaar dhiganaan oo garre moryaan oo garre meesha istaageen joogsa sir arab isbaarak shirtay adig oo aan lama isbaar ku jira dadka kale ma boqolkii ay qaateen وأشرد أنا يا هراب يعني إسلام مركي لو برون وهراب إيمين دب قريه بيسي ولا خاذ ولا قراء ولا حرحر كله خريان ولا خاذ لكن دانا يا مسلم نني ما هي من لكن يا هراب إسلام مركي ولا يسوق رمي هراب كاس كفر مركا وحايل سن هراب وحاشي نقدافة سومالي هلا نفيري وقتي أفرتن إيشنتي أفرتن إلحدي كنت ميدي سومالي هلا إهد سومالي ومدرس هلا إهد ما أنت ومالك هل أهد أن هجرني هل أهد ما أنت ومالك هل أهد هالكأهاي سومال هل أهد كان مجرتين هاي وكان مريحان وكان هبر كدر وكان أبقال وكان سام وكان جرير وملي هلا أهاي
بنادري انتو لا قال انت كسو اساس بنادري كسو اساس عبد القادر الشيخ سخاوي دين يوه بنادري وين دير حاجه دير يوه بنادري وين حاج محمد حسين يوه بنادري وين باف ابو كرباف يوه بنادري كل بنادري وبدنني شن مو مسيد بنادري اهين شن لدكاس اهين ما جرتني هبر قدر اهين شن هلا كجير هبر قدر عبد الله عيسى sideed banaadire iyo شن او دكاس سومالida kale ahay si fiican anaga u badnani laakiin shariif mid oo la idinkaga gar heli karaa jiro haye waxa waaye dowladnimada ha waxay rabtaa in afka lagu difaaco waxay rabtaa adinka in lagu difaaco sax waxa leedihiin qori ma rabnaa dhehaysin macnaa qori ma lacagan loo heenin misdadaan loo heenin may dad ba u hayna laakiin dadkii dhimasho ma rabaan dadkii dhimasho waa diid see isu difaacay marka hadda mid dhageyso aniga waa fikri waxaan kuwaan intisaan la dadkii banaadirigan waay waraya nimayo ilmihii ciidan ka dhigta hub ciidan qaadan waa adoo idin anfacay yarkii waa dhintane yarkii inta aloo dad saas wadama difaacan kara waa runtaada taas jidad igu leedahay wadama difaac karaan taas garaa u aragtay taas gar way wadama difaac karaan dadkan waay maalmo kale insha Allah aan maaragtay sidaan oo kale u sheekaysan doonaa oo aan taariikhaha guud iyo waxyaabaha ay aragnimada Soomaaliland waa idin sheekayaan waa idin haya way aragnimada markii ibaahataan diyaar hadda waa soo koobayna waxaan rabaa xalka Soomaaliya maxaad u aragtaa aday aragtidaada xalka Soomaaliya waxaan u arkaa federaalka in la joojiyo federaal faa'iido ma leh federaal kala qeybina u keenaa Soomaaliya hal niman karabaan هذا فير مدحبين هبل بلاش way gobernatoro way madaxweynimo isku awoodi madaxweynimo sheegtay kayda jirta u dhawaadida fito saara baawar fito si ruushka Mareykanka camal gobernatoro baawar fito mala madaxweynaha iskale baawar fito ra'iisul wasaare ale madaxweynaha iskale laakiin nin oo gudoomiye gobol oo dhahay ana madaxweynaha ay ma jiro waxaas ma oo arqaladayna faa'iido macna waxaan u arkaa Soomaaliya in federaalka ay iska dhaafto qof iyo cod doorasho ay tagto Soomaaliya hal ee la arko ilaahay taasan ugu tuuga dhul barwaaqan qabnaa dad sharaf leh kulli boqol islaam ee muslim aan qabnaa oo walaale oo isjecel waxaan arkay aniga 64 عيال بنادر way ولا فرتل انا ديو لا ما انا ديو كم خفض انت لعنا هل نسو استغ انا ديو ما انا ولا سو دغال ولا اسجعل الصومالي كان جرير way كان دارود way كم جرتين way كم ريحان وما لهين كهبر قدر هلا لهي نين مريحان نين هبر قدر نين ابقال نين جرير نين غير عمر صاحب way ولا سلجير هل لي اهاين هذا قداشان نول مركي خريهان لقات نول بيش يا هراب ايه يا وح ايه ولا صعب سمتي dadkii wala khayl dhaanta nin walba qabiilkiisa oo ku aroori marka taas ana baabiye Soomaaliya qabiilka dhaafa qarannimo iyo qabiil meel misla galaan qaranka waa qaran Soomaaliya nahay libaaxii Afrika na la jiray dawladii lamaad Masar lana horeys ciidan xaqiis ana ka ahayn wallahi hadan maxaa dhacday Kenya anaka ina diyaarad kan xafiis Kenya loo furo meel naga xukumo amar aan Kenya ka qaadan anaka maanta aan tugtugna Uganda swardiina oo naqd anaka libaax شنين سومالي بقول يكونتن سواحلي يتم يجرين دقالكي NFD عبد الرشيد خلف حقه قدومي وهاي NFD سواحلي ناقة برسدين حقه ناقة وقادين كبرسدين شكنا فحكا ناقة اللي بس أكادك ناقي مركا إركا عقاهي وحكدين إلا نيروبي لقلي مركا سومالي دق مسلمة أو إيق له واي لكن هذيك الخيخ سنتين سيدا اللي حكمها مامول قبلات وعد علينا مركا لو مامول قبلات يستوبي لجيران لبا كينيا يراعين سدح دبي يراعين محاني يا لوي نول امر ددود كشقيهيسا دبي waxay rabtaa shirkadahan waxaan dhan iida imaamusho maamulkeed iida khad adinka amar qaadatin waxa faa'iido qabtin Soomaaliya tahay wariya Soomaali oo geesiya tahay muslimna tahay waxaad adiga maamulo yaa lagu maamulin shacabkaadi adiga baarlamaan Kenya baarlamaanka 120 saay 13 wasiir ay ahaayeen 13 ay wasiirada baarlamaan hada 275 atihin wax waa qawmaysan 120 ka idin karona musuq maasuq ma ahayn kuwaas rijaal Allah yaa shilinka Soomaaliya qiimo u lahay dollar shilin sal sarfa shilin tadoo kuma ana sarfi hal dollar shilin tadoo kuma yal sarfa bees Soomaaliya waadkad shay musuq maasuq ku tilmaantay dawladii aadan hadda musuq maasuq ma ahayn عبد الرشيد علي شرمار رئيس الوزراء وهاي dawladooda musuq maasuq ma ahayn markii loo fiiriyo walaakiin xaaladahan markii loo fiiriyo aysan musuq maasuq ahayn ma ahayn maxamed siyaad ayimad maxamed siyaad wadanka wax waa u qabtay dhul waa dhisi ma sha Allah
warshado dhisi dhul waa dhisi iskoolaad jaamacadaas dhisi wadooyin oo dhisi jaamacadaha baxfiiri hadda sarooyinka oo loo dhisi isbitaal loo dhisi maxaa dhisteen 30 sano UNC maxaa dhisteen keema burburkan 30 sano maxaa la dhisi hal shilin ma la dhisi nin walba jeebkiisa uu buuxsaday guriga asar ka gatay asar ma ka dibida guriga ka gatay maxaa dhisteen inta hal wada aad subisan ma jira guriga oo nin oo wax dhisi isbitaal dhisi ama iskool dhisi 30 sano UNC ma jira ma jiro واسال مدحبين ام رئيس الوزراء او guriga dhisi oo dawladda wax u dhisi ma jiro wax qabad weyn oo qabtay ma aad iyo aad waa mahadsan yahay waa uga mahad celinayaa in uu na ajiibay oo stuudiyaha uu noogu yimid kadibna wareysigan maaragtay quruxda badan iyo way aragnimadiisa uu nala wadaagay Shariif Abuukar Axmed oo ku magac dheer Abuukar yaa waalidi aad iyo aad Abuukar yaa waalidi waa ku mahadsan tahay waa kaaga mahad celineena insha Allah wareysiyo kalena way jiri doonaan iyo wada sheekaysiyo aad iyo aad nabadgelyo daawadayaal